السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتها بوندا وضيالي لهانتين با ومر kale iyo goob kale iyo aamin kale iyo barnaamijkeeni garo oo guuleyso toddobaad kasta wax kasto khamiis aan booqano mid kamid ah xaafadaha magaalada Hargeysa anoo toddobaadkan booqanay xaafadeeda cad ee magaalada Hargeysa barnaamijkuna toosiinay ma daawasho wacan ku soo dhaw barnaamijka garo oo guuleyso magacaaga نادي عبد محمد naadi xaga digantay كورتشانو samtel ma isticmaasha su'aal baan ku diinta garto xilli abaal marin lambarkaaga samtel afsaali igu sheeg هاي إبر لح شان سجال هل صدح لح هل سداد لح وهاجاك hambalyan kula guuleystay xaq guuleysatay $5 muraada oo hal bil bilaash dareenka ka waran وفي عين والله إن شاء الله وحصل ماي وحصل هذا رشينا يومك إن شاء الله خير والله سمتلو حلا يود ما سنتين marka hore ku soo dhawo barnaamijka garo oo guuleysa magacaaga magacayga guulada Axmed Cali Jaamac guulada xaga digantay waxaan deganahay xaafada Cabay samtel ma isticmaasha waan isticmaalaa su'aal baan ku diinta garto wax la abaal marin waxaad sheegtay habka fudud ee uga shuban karto iyo dahabkaaga prepaid-ka ama ku shubashada shimkaarka samtel waxa weeyaan xidig 274 xidig وهاجاك hambalyan kula wad guuleysatay waxaad guuleystay $2 bar xidhmaan tana 7 sho hadal bilaash dareenka ka waran aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shirkadda Samtel noo soo dhaweynaya mas'ala wad guuleysay sama filaysay may laakiinse inkastoo shirkadda Samtel aan aad ugu xidhanahay aadna aan u isticmaalo laakiinse waan filanay insha Allah guusha hambalyan ku leeyahay aan shay insha Allah ku soo dhaw barnaamijka garo oo guuleysa magacaaga magacaygu waa Sakriye Xuseen Maxamed sakriyo xaga digantay boqol ka tagan walaal samtel ma isticmaasha waan isticmaalaa su'aal baan ku diinta garto wax la abaal marin waxay sheegtay habka ugu fudud ee dahabkaaga uga shuban karto prepaid-ka ama ku shubashada simkaarka samtel xidig 274 xidig وهاجاك hambalyan kula wad guuleystay $10 internet oo hal bil bilaash dareenka ka waran aad iyo aad baan wallahi faraxsanahay waa faa'iido aad u wanaagsan helay ma filaysay guuleysay ma filan insha Allah وهاجاك anaguna wala hambalyan kula ayaan ku soo dhaw barnaamijka garo oo guuleysa magacaaga ku dhawaay walaal magacaygu waa Aamin Xamse Ismaan xaga digantay waxaan taganahay xiraar samtel ma isticmaasha waan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinay garto wax la abaal marin waxay sheegtay habka fudud ee uga shuban karto iyo dahabkaaga ku shubashada ama prepaid-ka shirkadda samtel markaad ku shubanaysid maxaan ku dhahdaa waxaad markaad qof u dirayso kala de marka ku shubaysid prepaid ku hadalka markaad prepaid ku shubanayso ama ka qaban qaraacis waxa weeyaan 724 markaad ku shubanayso aan xidig 210 fargees ma guul baan ku rajaynaa walaal haye barnaamijka garo oo guuleyso soo dhaw baan ku leeyahay magacaaga soo dhaw magacaygu Cabdiraxmaan Abdullaahi Maxamed xaga digantay Sheekh Madar samtel ma isticmaasha waan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinay garto wax la abaal marin waxay sheegtay habka fudud ee uga shuban karto iyo dahabkaaga ku shubashada ama prepaid-ka shirkadda samtel waxa weeye xidig 274 xidig وهاجاك hambalyan kula guuleystay $3.8 internet 7 sho hadalo bilaash dareenka ka waran wallahi aad baan ugu faraxsanahay shirkadda Samtel aad baan ugu mahadnaqayaa dadka in badan bay qiimo dhibis u sameeysaa ma filaysay guuleysanayso dabcan haa guuldaro meeshu ma soo istaagin guul ma soo istaagin وهاجاك hambalyan anagu kuleenay barnaamijka garo oo guuleyso soo dhaw baan ku leeyahay magacaaga waan soo dhaweey walaalo magacaaga Faysal Caydiid Maxamed xaga digantay halkan suuq qaran ban kamid ah xafada digantay ma jirto ayaa walaalo xafada digantay 16 kan ban deganay maga samtel ma isticmaasha ha su'aal baan ku diinta garto wax la abaal marin waxay sheegtaa habka fudud ee uga shuban karto iyo dahabkaaga prepaid-ka ama ku shubashada simkaarka samtel xidig hal afar xidig وهاجاك hambalyan kula wad guuleystay $10 internet oo hal bil bilaash dareenka ka waran aad iyo aad buu fiican tahay Samtel inuu ku mahadsan tahay ma isla guuleysan sama filaysay ma ismaan lahayn wad guuleysanaysaa laakiin meesha lagu boqsay markaan ku meesha soo taagay وهاجاك anaguna hambalyan kula hay soo dhaw baan ku leeyahay barnaamijka garo oo guuleyso magacaaga magacaygu waa Absalaan Maxamed Maxamed xaga digantay waxaan deganahay xaafadda boqol ka tuka samtel ma isticmaasha ha su'aal baan ku weydiinay garto wax la abaal marin waxay sheegtay habka fudud ee uga shuban karto iyo dahabkaaga ku shubashada ama prepaid-ka simkaarka samtel marka doolar lagu shubanayo waxa la isticmaalaa xidig 114 xidig 114 afar waa marka xidig bad gelinaysa hambalyan kula wad guuleysatay waxaad ku guuleysatay $2 muraad 7 sho hadalo bilaash dareenka ka waran aad iyo aad baan u faraxsanahay hambalyan kula ku soo dhaw barnaamijka garo oo guuleyso magacaaga waa Umar Cabdi walaal xaga digantay Hargeysa samtel ma isticmaasha su'aal baan ku weydiinay garto wax la abaal marin waxay sheegtay lambarkaaga samtel af Soomaaliya waaye eber 5 waa eber 6 5 4 4 2 9 6
laba hal وهجاك همبليان كله وتقوليست حب قوليستي أفريد $10.9 هذا لا إنترنت هالبلو بلاش دريان كذا ورا وافي وأد بفعل ولا وأنا سوي وني سمتل أد بان واستعمالها إنترنت كذا يمراد لبضان استعمالها ما سلوت قوليست ما فليسي ماي لكن أد بعدين سوي وني وأنا كل واحد سنتي ما أدري شيء ها وهجاك ولا أنا همبليان كله همبلي سمت مركز رسول الله بان كله برنامج كوا برنامج كي جرا وقوليست ما قاعد مختار يوسف إبراهيم حاجات دقنتي حافظة بقول لك تكلم سمتل ما استمعش ها سؤال بين كودنا قرطو حلي أول مرين waxay sheegtay habka fudud ee ugu karato iyo dahabkaaga ku shubashada ama biribeerka shirkadda Samtel بريبيرد بدك شو نسا إذا بدي حساب بريبيرد كشو نسا مروح لقى حدق وين سيرو أفريقيس بينك على قرية حدق وين سيرو حدق أفريقيس بينك وين سيرو حدق بينك أفريقيس ما هي قول بنكورة شيني وهي مركز رسول الله بان كله هاي برنامج كي جرا وقوليست ما قاعد محمد أحمد يوسف فرح حاجات دقنتي waxaan deganahay Sheekh Nuux Samtel ma isticmaasho awan isticmaala su'aal baan ku weydiinaa garto xilli abaal marin waxaad ii sheegtaa habka fudud ee uga shuban karto iyo dahabkaaga ku shubashada ama biribeerka shirkadda Samtel ku shubashada 109 waan ka xumahay guul baan ku rajeeyay marka hore soo dhaw baan ku leeyahay magacaaga khadri soomaro xagee degantay waxaan degaday xaafadda idaacadda Samtel ma isticmaasho hawaan isticmaala su'aal baan ku weydiinaa garto xilli abaal marin waxaad ii sheegtaa habka fudud ee uga shuban karto iyo dahabkaaga ku shubashada ama biribeerka shirkadda Samtel walaal waxa weeyaan 7 waxa ka horeeya 7 wax xidig 7 xidig lambar hagaag hambalyaan ku leewad guuleysatay waxaad guuleysatay $5 internet oo hal bil bilaash dareenka ka waran waa aad baan u faraxsan shirkadda Samtel aad baan soo dhaweynaa si bulshada uga shaqeynayso iyo adeegyada xagga internetka anu Samtel baan isticmaalaa muddo imika 5 sano imikana ay aatadu way furanta wax kale ma isticmaalo aduu bishii aad baan u faraxsan halkaas maray gaarigan watay waan soo degay halkan aan u macaamiil oo kaga shaqtaa moogta marka waxaan sir bal intaas ku guuleysatay waan soo degay gaarigan halkan waan ku guuleysatay aad baan u faraxsan annahan balay way hagaag daawadeen inta ka soo noqono bulshada magaalada Hargeysa su'aasha toddobaadkan weydiino oo ahayd waxa sheegtaa habka ugu fudud ee uga shuban karto iyo dahabkaaga biribeerka amba ku shubashada sim cardka Samtel jawaabtu waa xidig 274 xidig amba xidig 214 xidig inta barnaamijkan ku xiga ku muddo waxaan ka tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh